gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu oo safar shaqo ku jooga dalka Switzerland ayaa maanta booqday dugsiga farsamada gacanta iyo tiknoolajiyada ee magaalada Bern ee caasimadda dalkaasi waxaana wafdiga duqa magaalada Muqdisho halkaasi ku soo dhaweeyay ku-xigeenka madaxa dugsiga Masar Bulle. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybaha uu dugsigan ka kooban yahay isagoo warbixin ka dhageystay maamulka dugsiga oo ay ka wada hadleen sidii waxbarashada gacanta looga caawin lahaa dhalinyarada magaalada Muqdisho oo kamid ah qeybta ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed. dhanka kale duqa magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale booqday jaamacadda Berna ee caasimadda Switzerland halkaasi oo ay ku soo dhaweysay Professor Sonja Fogte oo ah bare iyo cilmi baare dhinaca horumarinta waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane injineeriisu kala hadlay sidii maamulka jaamacadani ay qayb uga noqon lahaayeen horumarinta dhinaca waxbarashada ee jaamacadaha ku yaala gobolka Banaadir. duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu faahfaahiyay ujeedka booqashadiisa. magaaladan Bern ee ah caasimadda dalka Switzerland ayaan maanta waxaan kormeer ku tagnay kolleejada farsamada gacanta Bern iyo sidoo kale jaamacadda Bern. ujeedaduna ay ahayd inaan soo ogaano wax ka barano isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho si shaqo abuur loogu sameyn lahaa oo iskuulada farsamada gacanta maamulka gobolka Banaadir oo in muddo ka shaqeynayna u hirgelin lahaa ayaanan ugu booqanay isla markaana aan isku afgaranay in aan ka wada shaqeyno sidii iskuulkaas farsamada gacanta oo kale magaalada Muqdisho looga hirgelin lahaa isla markaana dalkan Switzerland uu kaalin uga qaadan lahaa. runtii safarkan aan ku nimid dalka Switzerland waxaan shalay daraadna ka qayb galnay shirweynihii qaxootiga adduunka gaar ahaan dadka barakacayaasha oo madaxa hay'adda UNHCR ee qaxootiga caalamiga uu soo qaban qaabiyay isla markaana aan kulamadii aan yeelanay uga wada hadalnay sidii barakacayaasha aan xal waara ugu heli lahayn. annaga maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay waxaan naga go'an inaan u ololeyno caasimadda inay sidii barsimaad ku soo noqoto inaan xiriir wanaagsan u sameyno caasimadda iyo caasimadaha kale adduunka isla markaana qorshada uu yahay ballanaan la leenahay duqa magaalada ee caasimadda dalkan Switzerland ee magaalada Bern oo isagana aan Britool ka wada hadli doono si loo xoojin lahaa xiriirka labada caasimadood. waxaan u taaganahay waxay tahay in shacabka si loogu adeegi lahaa waxaan rajaynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan inay noqdaan kuwii runtii nagala shaqeyn lahaa sidii aan maamulka gobolka Banaadir u gaarsiin lahayn meesha uu istaago. maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii dambe waxa uu xoog saarayay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo waxwada qabsiga magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale ee caalamka si caasimadda ay u soo ceshato heybadii iyo bilicdii ay lahayd. Nuur Saciid Taariil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.